السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا إذن سلامي ولا لي من البقى جوكتين كسو دواد جنالكين لدن لايف ستايل وماركالة إيو لدن لايف ستايل أو إذن له سو دواد كسو دواد قعمة فران maanta waxaan idin wadaa barnaamij yar oo aniga aan jeclaystay inaan idin la wadaago waayo wax walba aniga aan jeclaysto ama iqanciyo ama aniga aan ka faa'iido waxaan jeclahay inaan idinkana idin la qaybsado because waxaad ka mid tihiin familkayga, waxaad tihiin darbeyga, waxaad tihiin يعني dad ilaah dartiisa aan isku jecelnahay tihiin, asxaab igu qaaliyaa tihiin, walaalahaygaa tihiin, maasha allah. waxaa jira buug aniga aan akhristo markaan يعني guriga aan firaaqo ka ahay ama aan يعني wax hool ama la dhaho ama mashquul aan ahayn. buugaas ayaa يعني mar waliba aniga aan eray walba aan ka faa'iido ama aniga nafteyda dhiirigeliyo ama aniga wax yar ka mid ah ay taabto waxaan jeclaa inaan idinka idinla soo cararo. maantana waxaa jirto barnaamij yar oo يعني waqti badan inaan idinka qaadanaynin, aniga wax badan ayaan ka faa'iiday, adigana waxaan jeclahay adiga idaawana waxaan jeclahay inaad ka faa'iidi doontid insha allah. ila dhageyso sidaan ayaynu ku tahay يعني waa barnaamij yar oo dhiirigelin ah oo naftaada يعني ku baraarujinaya insha allah. haddii wado qaldan aad ku socotay ama wadadaada haddaa mid saxan aad ku taagneed oo aad sii saxnaanaysid, haddii mid qaldan ama barnaamij qeybahaas ciwaanahaas wax ka duwan haddaa isticmaali jirtay inaad iska bedeli doontid ayaan rajeynaa insha allah. waayo waxaan dad dhalinyaraan nahnay يعني dad waliba dhinac qaldan waa u shaqeyn karnaa, dhinac saxan waa u shaqeyn karnaa. marka haddii aad يعني wax ka mid ah barnaamijkan uu ku taabtay ama noloshaada wax yar ka mid ah uu ka bedelay, aniga farxad ayay ii tahay. commentigana iigu dhaaf haddii aad hal eray ka mid ah adiga aad ka faa'iiday, waayo haddii aad comment dhiirigelin ay soo qortid anigana beri meeshayda ayaan ka idinka ayaan idinku kalsoonahay. waxaan rajaynayaa ama aan mar waliba aan ku socda aan ku soo kaca inaan mar walba ay dhiirigeliseen. dhiirigelintiina ayaan ku socdaa, dhiirigelintiina ayaan maanta heerkaan kusoo gaaray. alxamdulilah, ilaaha mahad shukri iska leh. ilaah ka sokoo dadka aan mar waliba u mahad celinayo waa idinka. maanta haddaa idinka cagta hoose dhimarsiin meesha aan jooga, laakiin haddaa madax isaartiin madax ayaan saarnaanaya, mar waliba maqaam sare ayaan idinka joogaya insha allah. waan idinka rajeynaya mar waliba. haddana barnaamijkeena ayaan sii gudagalaynaa insha allah. buug weyn halkaan ii yaalo iigu qoran yahay ciwaan ayaan u dul istaagaya insha allah. midkii ku cajabiyo ama midkii waxaa ka faa'iiday fadlan commentiga iigu qor, waa iga codsi. waayo hal eray aniga afkayga kasoo baxay haddii wiil walaalkayga ama gabar walaashay ama maamo soomaaliyeed wax un uu ka bedelayo aniga waxay ii tahay farxad. habeenkaas ama maalinkaas commentigaaga aan akhristo waxaan ku seexanayaa ama aan kusoo kacayo waxay tahay farxad ayay ii tahay. haddana aan sii gudagalno insha allah. wuxuu ka bilaabanayaa ma ogtahay horta shaqsiyo haddii adiga aad isku aqoonsaneen ama aad aaminsaneen in dadka ay ku wada jecel yihiin inaadan guuleysanayn, fadlan marka ugu horeysa adiga aaminsanow in bulshada adiga markaas aad ku dhex jirtid ay ku jecel yihiin. maanta haddii aniga ahaan ladan ahaan haddaa aniga iska dhaadhiciyo maadaama youtuber aniga aan ahay oo social mediahaas aan ku jiro, haddii dadka aniga aan wax usoo bandhigayo ay ijecleen aan iska dhaadhiciyo tallaab ma qaadi kari, mana guuleysan kari. meesha aniga aan ku haminayo ama aan ku riyoonayo oon ma gaari kari. laakiin haddii aniga inta miraayadeed istaago, miraayad anaa isku aan istaago aan dhaho hay ladan dadkaaga way ku jecel yihiin, bulshadaas dhexdeeda magac sare ayaad ku leedahay, meel sare ayaad ka joogtaa, way ku jecel yihiin. hadda aniga nafteyda aan ka dhaadhiciyo inay i jeceshihiin horumar ayaan gaaraya. laakiin haddii qofkii arday ahaaw, macalin ahaaw, hooyo ahaaw, يعني qof guri iska joogto ahaaw, meel walba markaas adiga aad joogtid haddii aad iska dhaadhicisid in dadkaasi ay ku neceb yihiin ama يعني adiga lagu ataagareynayo mar walba abuse lagugu sameeyo, hadda adiga iska dhaadhicisid tallaab aad qaadi kartid ma lahan. laakiin haddii adiga naftaada aad ka dhaadhicisid in lagu jecel yahay waa hubaal inaad guuleysanaysid. midka xigta wuxuu yahay noqo mid naxariis leh. maasha allah, noqo mid naxariis leh. naxariista horta waa wax dunidan aan ku joogno. maanta haddii naxariis la-aan ay ahaan lahayd wallahi nolosha inta mala soo gaara. alxamdulilah, ilaahayga naxariistaas nagu manaystay oo يعني naxariis inaan ku wada noolaano. maanta in waagu uu noo beriyo, mar qorax noo soo baxdo, roob noo da-o, waa naxariis ilaah naxariisoona siiyo. alxamdulilah, alshukrillah. anagana maxaa la rabaa inaan naxariistaas يعني aan isa siino midba midkeena kale. haddii hadal wanaagsan oo naxariis la isugu hadalno qalbiga u qabooba. laakiin qofka hadduu kaasoo horbaxo ama aad la nooshihiin haddii adiga xaas aad tahay ama يعني xaaji uu ku joogo, haddii aad wada naxariis aad ku wada nooleen
يعني noloshaas wax micne kuma lahaanayso kuma dhadhamayso haddii canug yar xitaa kasoo qaad maanta hadduu 2 bil aduu jiro qofka dhabtiisa ku haya hadduu naxariis uu ka dareemaynin ilmaha intuu way dareemaan hadday naxariis ay ka dareemaynin canugaas maanta dhan wuxuu dareemaa inuu ciriiri ku jiro uu caburan yahay uu ooynaa maanta oo dhan laakiin haddii uu qofka dhabta ku hayo qalbigiisa nadiif yahay naxariis uu ka dareemayo canugaas farxad ayuu ku korayaa sidoo kale hooyada guriga joogto haddii ayada la dhiirigelinayo naxariis loo muujinayo ilmahaas maalinkaas ay la joogto يعني فرحت iyo wuxuu ku haynaysaa qalbi nadiif ah maanta dhan kama daalayso inay kan baambas ka bixiso kan markuu inta ka soo inta ay ka qabato kan cunto siiso kan iskuul geyso kan madrasad ay geyso ma daalayso waa goorme waa markii iida iyo xaajigeeda naxariis oo ka wada dhexeeyo sidoo kale hooy adigana waxa lagaaga baahan yahay gabar iyo adna waxa lagaaga baahan yahay naxariistaas mid la mid adiga aad xaajiga ugu baahanta in adigana sidoo kale aasiisid ilmahaaga sidoo kale naxariis ay kaaga baahan kaliya adiga uma baahnid kaliya uma baahnid naxariis wargeed yar maanta haduu jiro naxariis u baahan maxay tahay inaa waraabisid waxaas naxariis kaaga baahan adigana goorme naxariis yeelanaysa ilaahay naxariis wuuna siiyay alxamdulillah adduunkan aa u jeedid maanta haday naxariista ilaahay ay ooli lahayn laguma noolaadeen alxamdulillah alshukrullah aan noqono dad mar waliba raxmad ilaahay ku mahadiyo oo ku shukriyo kadib marka ilaahaga u mahadsid oo ku shukrisid ayaa adiga noloshaada iyo gurigaaga iyo reerkaaga naxariis aad siin kartaa laakiin haddii adiga qof caburan aad tahay qof xirxiran aad tahay wax naxariis reerkaaga ma u haynaysid mana siinaysid insha Allah kan xigana wuxuu noqonayaa noqo mid dulqaad leh qof aan dulqaad lahayn maanta noloshan galaas bi ka macaba dunidan noqod qof dulqaad leh marka ku dhaafay tahay haddii aad wax dulqaad aan lahayn wax adiga qaban kartid malahan adduunkaneeto waxa waa ugu wareegtaa qofba maalin ayuu ka leeyahay laakiin noloshaas hadba waji kugu soo wajahayso hadba noocay kugu iimaanayso hadda dhabarka u dhiganaynin ama aad darbi shub aad wax walba ku soo wajaha aad yani u dul qaadanin nolosha waxba yahay ay ka noqonaysaa laakiin mar waliba ku dadaal hooyo mar waliba waxaan ku soo celcelino waa hooyo iyo aabo mar waliba noqda kuwa dulqaad badan noqda maanta haddii idinka aad isku dulqaadanin aniga yani nolosha halkan may soo gaarteen insha Allah kan xiga wuxuu yahay noqo mid deeqsi ah mar waliba ahaa mid deeqsi ah yani deeqsi markaan ku dhahay noqo qof walaalkiisa maanta markuu dhibaataysan yahay uu arko wixii asiga yarta uu ku dhaamo mid ugu naxariisto oo ugu deeqa noqo mar waliba qof naxariis badan deeqsi badan noqo qof firfircoon noqo qof mar waliba yani bulshada ha noqon qof mar waliba caburan oo dadka markuu ka hor imaado waji xuux ka hor keenay ha noqon mar waliba dhoola cadeynta aad ay u qurux badan tahay mar waliba dhoola cadeyn deeqsi ahaa bulshadaada si firfircoon ay kula nool maanta qof hadaa xirxiranta haddii xitaa gudaha aad dabeecadaada ka fiican tahay laakiin wajigaaga hore uu xirxiran yahay qofka soo aadaysa ma lahan maan dukaan hadduu kuu furan yahay oo qof kalena kuga agfuran isla badeecadii aad gadaysiin laakiin qofkan dukaankiisa شيء قالي أو هذا ضربه بيع قالي هقدر هذا وجه فرعون فوجه فرحان له قلب نظيف وكسو دوينا قف كاس بدي عارف لسعانسة لكن أذيك واحد رقيسة دا جد يسي حتى إن كاس رقيسة دا جد يسي أو وجه وحرحرينها أو وجه عبوس آتها نيفا إني هذا الشيء أكو قدمه لكن مرة لي بعد وجه أو فرعونها عاد دولة عديني ست ما شاء الله دنيا ذا واحد بدن آيات قبسانة إن شاء الله كان حجة وحوي هاي قابل وجه قرحان يعني وجه فران إيه وجه قرحان حتى هدي دعوة إنه كحمي وعي ما أنت هدي قف كان هو كحمي لكن هو كحمي صح هري آيات أشكون حالات كلا ده حمرتي حمانا إذن كده حمادي بين آدينا تي واحد وش قصوا الشيطان هدي إن كيس دعوة إنه قف ولا كذا أما سكية هذا أما صاحب كذا هدي وقلت كلا دعي أما يعني خلافه إذن ده حمري مر ولب aad la kulantid adigana yani ka ajir badnaa ajirka adiga ku shaqeeyo mar waliba ku soo qaabil waji furan oo qurux badan ku qaabil asiga tiisa asay qusaysaa laakiin mar waliba xakamay naftaada noqo qof naftiisa xakameyn karo qodob kale wuxuu yahay mar waliba cafis qaado waayo cafiska waa aarsi ugu wanaagsan adduunka qofka binaadinka aad ka aarsan kartid waxa waa cafiska mar waliba cafi qofka qalad doonto uu hagaagal nafgo oday ayaa laga samraa mar waliba oo qofkan uu qalad ka gala fadlan adiga kala hormar cafiska waa shay yani qofkan waxa ugu weyn aad kaga guuleysan karto waa cafiska laakiin maanta dad heblaysanka ii taag anasanka u taagaya
wax ay kusoo kordhinaysa malahan laakiin mar haddii qalad uu dhacay fadlan aad waxaan kaa codsanaa in adiga noqotid qofka mar waliba cafiska ku hormara qodobka xiga wuxuu yahay ogow in laga saxan yahay ha xitaa haddii ay dhacdo in case tani waa adduun waayo tan haddii ay dhacdo in adiga aad saxan tahay balse yacni qof adiga aad xishmeynaysa uu ku dhahay fadlan walaalay ama walaalow yacni qofkan adaa ka qaldan waa inaad saxan tahay laakiin qofkan adaa ka qaldan lagu dhahayo noqo markaas qof qalad qaadana adigoo saxan qaado qalad waayo qof ayaa madaxiisa ku xishmeysay qaladkaaga qalad adigoo saxan ayaa qalad qaatay taasna ajir inaad ku heshid mooye wax xumaan kaaga imaanaysa malahan ilaahna waxaa raali ayuu kaaga noqonayaa ogow in laga saxan yahay aqoonso xadkaaga adiga aad leedahay mar waliba noqo qof xadiga uu dunida uu leeyahay inaad ogaan kartid laakiin haddaad dhahdid dunidaas sidaa doona ugu noolaanaya waxaan doonaa sameynaa dadka iga hooseeya ama dadka ila level ha ahaadaan ama ha iga hooseeyan saan doona ula dhaqma haddaad dhahdid waxa waaye wax ay kusoo diyaadinayso oo dembi aan ahayn ma jiro laakiin noqo qof mar waliba xadiga uu dunidan uu ku leeyahay uu ku nool yahay oo garan kara noqo midka xiga wuxuu yahay si dadka waxa aad jeceshahay siinin wax adiga aan neceb tahay walaalkaaga ama walaashaada ama qof kale xitaa sheeya ka ahaado ha siinin wax adiga aan neceb tahay si mar waliba naftaada waxa aad jeceshahay la jecelootaan walaalkaaga la dhahay marka waxaan ka yani kugula talin lahaa inaad noqotid qof mar waliba dadka walaalihiisa ama waalidiintiisa si la jecel waxa asiga naftiisa uu la jecel yahay qodobka xiga wuxuu yahay ha noqonin shakhsi galad sheegasho badan يعني قفكان wax abaal ayaa u gashay abaalkaas u gashay adi ilaaha ku xisaabtamaysiin ilaaha ajirka siina laakiin hada mar waliba ala soo taagnaatay kabaran hebel waxaas ayaa maalin hebel ku qabtay maalin hebel waxaas aan ku sameeyay taas ajirkaay hore u shaqaysatay inuu ka nusqaamay ma ogiye gabar yahay ama wiil oo fikir muxuu ku soo ziyaadin kar wax uu ku soo ziyaadinay ma lahan laakiin mar waliba hada adiga la soo taagan tahay hebel ama heblaayo maalin hebel markay saas ahayd waxaasan ku sameeyay waxay ku soo ziyaadinaysa mana fadlan ha noqon qof yani oo galad sheegasho badan waxaan qofkan waa u sameysay ilaah dartiisa ugu sameysay ku ilow meeshaas laakiin hadii maalin walba ala soo taagan tahay dambi ay ku ziyaadinaysa mooy ajirkaagina uu kaasi dhaqma يعني ذنبنا وكسي زيادة نسا تن حكتا وحيتا هاي هنقول الشخصي ها قال الشيء شبدا هنقول الشخصي درجة كفانا صح تاني واوح لو بهاي إلا هذا هنقول نقف درجة كفانا هذا حديث ما أنت جغير أيا اللي إيدي كان إيجو هرئينا عكت هوستي دمريان جا إيجو هوستي عكت هوستي دمرينا هذا حديث ذنبي أيضا ما يشوى كسي شقيسة نسا لكن نقوم مرة هدي قف كان وحل أما وح لو ديبي قف دتكي سو كساعدة نقول لكن هذا كبرن أو ما أنت حل يا لي ديبي وإن دت كانت أنا عن كأرجوستا وحن دون عن كسمية سدان دون ولا دقمة نو هنقول ندت كنوع عاسي مرة ولي واحد كده عشان إن نفتح حكمين كرتيب أو شيطان كأعلى دجالة كرتيب مرة ولي بقى شيطان كسكن على كرتيب نقف مرة ولي بقى إله كحرن نقف مر وليبا إله كوما هذه كشكريا ما عند دا جلس بي عد كلي عدتو كجوكتو نقف مر وليبا الحمد لله لا ويقف بيها سعد بأمر قار عن هلينين لكن هذا أحد كوران ما أنت وان هستي إلها إيش اللي مركان وح هستي إلها أمها تعلنا ما أنت وح مي هستي دوننا نعايا إلها دوننا إنقاذ وحسا لا هذا ذنبي آيات سي شقي سنة سوولك ذنبي آيات شقي سنة لكن نقاقف مر وليبا إله هذه نقاقف مر وليبا إله يسكو حيران قف إله كوكالسون هذا مرنا مليعو ما فهمتي إله مر وليبا كوكالسون تلاد هذا مر وليبا إله وليه وإن شاء الله هل كان أيان ربا إنا كسو قبقبيو برنامج بدن أيان جرو بوغاس أنيق أن آدي أنا أغفى إلي والله وحاكو دهي بوغاس دي أدسيل وعدا سيل لازم دي nolosha dadwalkeeda aad ay kuugu saxmaysaa waxyaalo badan ayaad noloshaada ka sixaysaa insha Allah aniga buugaas aad aan ugu xiranahay maalin waliba hadaan laba page aan ka akhrisan ka badan waan ka sii akhristaa insha Allah idinkana mar walba waxaan idinku dhiirigelinahaa idinku waanaa noqo qof mar waliba naftiisa asiga dhiirigeliya ha ka sugin qof kale inuu ku amaano ama uu ku dhiirigeliyo adigoo isku aqoonsano in adiga wax waliba aad isku tahay wax waliba in adiga tahay hormood meel bina adiga u tahay aqoonsano insha Allah
halkaas ayaan ugu sii baxaya barnaamijka. Haddaan maanta dhan aan dhaho idin dhiirigelina ama wax badan ayaan idin sheegaya, barnaamijka wuu sii dheeraanaya, ma jeclinaa waqti badan idinku cuno. waxaan halkan ayaan kusoo gabagabeynaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Bye bye.